بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام يا جماعة اختيارات ميل والبعض جوتان ومر لبعض عشرين امتحان كوسب سنة binary and digital options kuwa oo aynu kaga faa'iideysano waxyaabaha loo yaqaano ganacsiyada xorta ah haddii ay tahay online trading nooc walba uu yahay haddii uu cryptocurrency yahay iyo haddii uu yahay forex iyo haddii uu yahay binary and digital laakiinse waxaanu isku ogeynaa ma aynu idiin sheegay anigu inaan binary and digital expert ahay walow aan hore usoo qaatay shayga loo yaqaano ganacsiga loo yaqaano forex maantase waxaan anigu guul ka gaadhay ama guul ka sameeyey ganacsiga qaybtiisa binary and digital so binary and digital horeyna wuxuu yahay isla soo garanay sida uu kaga duwan yahay hore isku soo sheegay waxyaabaha jira iyo risk and rewardna waa idiin soo sheego cashirada ugu muhiimsan ahaa cashirkeena u dambeeyey oo ahaa martingale iyo sida la iskaga ilaaliyo ama khasaaro looga soo kaco adigoo isticmaalayana waa idiin sheegay caawa ama maanta classka wuxuu doonaa sessionka live-ka ah topiga loo yaqaano macnaha inaan idinka sheegayo sida aan maaragtay anigu ku kasbaday aqoontayda ama experience-kayga taasoo idinkeedi bedeli doonta ama isku dayi doonta in macnaha aad isku dayi doontaan inaad ka faa'iidaysataan waxyaabaha ugu muhiimsan aniga ila soo kulmay waxaa kamid ah inaan marar badan ka niyad jabo iyada oo aan arkay waxyaabo ku saabsan in ganacsigaba aan dib uga istaago dad badan oo igu kalifay in aanan qaban karayna waan la soo dirsay aadna waan la soo dirsay maantana qaadan lah inaan heerkan ka taaganahay ganacsiga aan ku xisaabtamo maalintii in ka badan dhowr boqol oo kun oo dollar marka ugu yartahay so maalintii inaan ku xisaabtamo hadafkaygaas waxaan kusoo gaadhay riyo walboo la iisoo sheego ama wax walboo la igu sheego khiyaali iyo riyo taan anigu aaminsanahay baan ka raaci jiray muddadaan ka raacayna ma foga aniga taariikh hore iyo idinma sheegayo wax hore waa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaan isbeddelka ugu badan nafteyda ku sameeyey waa muddooyinkii ugu dambeeyey waqtiga aan anigu go'aansaday in aan horumarkaygan ka faa'iideeyo waa isla muddooyinkii aan anigu idinla sheergareeyey aqoontayda markii aan arkay anigu inaan progress fiican ku jiro aniga oo uu fikirkayga hadafkayguna yahay in dad badan ay ka faa'iidaystaan iyaga oo aan anigu u ahay sabab ganacsigooda gudahooga way dhici kartaa barhkeen inay ka hadhaan ama ay marxalado badan inooga hadhaan sababo badan oo jira awgeed laakiinse wax excuse anigu xaggan idinkuma hayo aad hadhow sheegataan live-kayga iyo videoskaygu waxay idinka caawiyeen ama idiin sheegi doonaan inay detail jiraan sidoo kale waxaa idiin sheegay inuu team jiro teamkaasoo hadhow tole aynu ku wada shaqayn doono si tradeska aad saves iyo losses iyo aan idinka ilaaliyo waxyaabaha dangerka so haddaba topigeena caawa wuxuu ku saabsan yahay labo arrimood ama laba source oo igu kalifaynaan anigu guushan gaadho sourceka koowaad waxa weeye ama sourceka u horeeya I trade practice account-kan aad ka wada yaacaysaan qaarkiina ay realka ku ordayaan anigu aad baan uga ganacsaday aan ku tirirgariyey practice account-ka waxaan ku jiray muddo laga joogo 6 months waa markay ugu yar tahay walow ay dadkii aniga ila teganayay igula teganayaan at least sanad qaata dadkiisa practice account-kan aad ka ordayso waa waxa kuu sahli doona inuu mustaqbalkaaga ku bedesho bilaha soo socda maalmaha soo socda haddii aad waqtigeeda siiso sidoo kale waxaa jira waxyaabaha loo yaqaano maxaan ku rahdaa isbedbedel haddii aad isbedbedel badan tahay fadlan intaad dabeecaddaada soo hagaajiso kusoo laabo si aad u ganacsan karto haddii aadan karayn ilaa aad ka karayso waxba kama qaban kartid suuqan haddaanan kuu sheegay so dabeecadaad maanta bedeli karto haddii aad u joojinayso ama ay kaa joojinayso waxaa fiican ama kula gudboon inaad suuqa out ka ahaato si aadan khasaaro u gelin waanan idiin sheegay anigu investment hadda idinkulama gelinin waxaan idinkula tegaya practice idinkoo isticmaalaya account-yadiina game account sidoo kale ciddii real isku aragtay inay isticmaali karto waxa weeyaan anigu waxaan idinkula talinaya ilaa aad ka noqonayso practically intaad professional ka noqonayso at least professional noqon laakiin decent retail trader noqo qof u qalma noqon okay anigu waxaan keliya isku tiirinaya ama ku tiirsanaa horta waa technical analysis maaha fundamental
mostly technical baan ku analyze gareynaya anigoo fundamentally ula socda suuqyadan ayaan haddana mostly waxaan isticmaalaya technicalku wuxuu suuqan analyzing ku wada resistance iyo support zone baan eeganaya indicator kaan eeganaya waxaan eeganayaa stop maxaa dhahdaa investmentkaygu meesha uu galayo candlesticks kaan akhrisanaya waxaan akhrisanayaa ITM OTM baan akhrisanayaa waxyaabo badan oo waxyaabaha lamid ah ayaan ka faa'iidaysanaya so anigu danka ma aan lahayn marka loo eego waxyaabaha loo yaqaano fundamentalka markaan anigu trade-ka bilaabiyey fundamental laakiin aad buu ku caawinayaa laakiin ka ugu muhiimsan ee aad ganacsigan ku wadayso marnaba aadan ka maarmayn waxa weeye technical analysis inaad adigu suuqan analyze gareyn karto kor iyo hoos midka uu joogo midka uu tegayo iyo midka uu u dhaqaaqi doono waxaan inuu circle samaynayo inuu afargees samaynayo iyo inuu toos u soconayo cid alla cid og ma jirto waa adduunkaas ka socday algorithmku isdhaafayo laakiinse way fududahay inaad analyze garayso maadaama uu laba jiho mostly u socdo up and down uu socdo inaad analyze garaysahay waxay ku xidhan tahay boqolkiiba waxa loo yaqaano maxaan ku idhaahdaa adigu chanceska aad siiso so maxaa idin sheegay 180c boqolkiiba haddaad 80 siiso 100 aad 80% siiso inaad ITM ku gasho ama aad faa'iido badan hesho ka saar khamaar niyadaadan haddii uu khamaar niyadaada ku jiro ha gelin ganacsi khamaar ka bax waan khamaare waa isku day markaan bilaabay laakiin waxba ku cuni waayo so khamaar ka bax waxaad isku daydaa inaad xaqiiqada gaadho haddii aadan karayno maalin walba maanta haddaad kari weydo beri isku day inaad karto beri haddii aad traderskaaga khasaaro u bataan saan dambe isku day adiga oo exact same amount gelinaya maalin walba waxaad ku gelinaysaa amount oranaysaa maanta waxaan ka bilaabayaa demo accountkayga so 10,000 iguma jirtaa $20 oo kamid aan ku bilaabaya 20ka laba u gashayaa saddex u gashayaa 20ka maanta haddii aad iska lumiso traderkaaga ka baxo beri soo noqo waa iga talo because of waxay ku siinaysaa dhiirigelinta ah maanta maadaama 20 khasaarisay berina 20ka un save aad save gareyn karto maalinta ku xigta waxaad ilaalinaysaa marka inaad profit iska ilaali ta isku manage garee fundamentally haddii aad management u baahan tahay xagga dhaqaalaha oo aad kula manage gareyno waxaa jira haddii aad u baahan tahay xagga dhaqaalaha inaan kula manage gareyno waxaa jira haddii maxaa la idhahdaa waxa loo yaqaano courses u gaar noqon doona managementka financially markay tahay akademiyada ama qaybteenana wax kala barano okay waa haddaba muxuu ina leeyahay waxa aan qoran jiray mar walba aan meel ku qoranayay qaladaadkaan sameeyay meeshuu qaladku ka dhacay baan eegi jiray ma position dhaxa ahaa maalinta dambe in galo war waa positionkii shalay aad gashay maxaa ku geliya waan is odhanayaa maalinta saddexaad waxaan is odhanayaa codkayga ma la maqlayaa si fiican ma la ii maqlayaa xagga chatka iiga soo jawaab si codkaygu haddii uu recordingkiisa fiican yahay aan ugu sii socdo haddii kalena aan wax ka bedelo quality-ga good okay waayo waad mahadsantihiin waxaan marka samaynaynaa waxa loo yaqaano qaladaadkaaga inaad ka barato haddii aadan qalad ka baranin noloshanaaba kuu sheegaysatee haddii aadan qaladkaaga ka baranin maxaabad meesha kasoo doonaysaa least timeka aad khasaarinayso inaad xaggan geliso u qalmaa ma u qalmaa mise uma qalmo isweydii gal markaa trade gare brother ama walaashay waxaa idiin sheegayaa sidoo kale waxaan ka bartaa qaladaadkayga anigu idiin sheegay waxaan ka bartaa mar kasta khibrad ka faa'iidaystaa professional traders hadday YouTube ku jiraan haddii ay platformka laftiisa ku jiraan chatkooga la socdaa meesha ay analyze gareeyeen ama signalka ka soo direen leeyihiin euro USD second minute ka soo socdo waa 5 minute baa lagu xisaabtan 5 aad u galaysaa saay u sell u gal so professionals kan waan ka faa'iidaystaa mar walbana qof ka khibrad roon inaad ka faa'iidaystaa aad bay ku anfacaysaa so sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano meelaha inaad focus ka saarto u baahan waxyaabaha inaad focus ka saarto u baahan maxaa ka mid ah waxyaabaha inaad focus ka saarto u baahan waxaa ka mid ah indicators hore ku sheegay hadduu Bollinger Band yahay hadduu stochastic oscillator yahay hadduu moving average yahay iyo hadduu parabolic SAR yahayba waa isticmaali kartaa laakiin mostly SAR intan indicatorskan aan hadda idiin soo sheegayo isku day inaad kuwa aad ugu trade gareyn karto sidoo kale waxaad saartaa the best chart setting
macnaha meeshaadan aad ka tiriirgalinaysa inaad settingka ugu fiican isticmaalayso hadduu timeka yahay the best asset lacagta ugu fiican la soo baxaysaa trend lineska ugu possiblesan hadduu leeyahay suuqaasi isagana uu faa'iideynaya reversal points hadduu meelo uu degdeg uga noqdo degdeg haddii uga noqdo meelaha qaar sidaa awgeed wuu ku anfacaya breakouts hadduu leeyahay wuu ku anfacaya false breakouts hadduu leeyahay wuu ku anfacaya sidoo kale waxyaabo badan buu ka anfacaya haddii aad ugu tala gasho maaragtay inay aad ka faa'iideysan karto false breakouts baa jira wax la yidhahdo isagoo kor inuu sii qarxayo oo suuqu kor sii soconayo ama hoos usii jabaya aad moodo ayuu haddana kugu soo noqon false breakout baa la yidhahdaa iska ilaali waxaad iska ilaalisaa indicatorka qiyaasan eed isticmaalayso kuwa aan ahayn oo dhan patterniska aad isticmaalayso sidaad u isticmaalayso oo dhan iska ilaali waxyaabaha kale maxaa la fundamentally ku caawinaya iyagana qaarkood baa iska ah kuwa aad meelo kale ilaa aan lagu kalsoonin ka hesho so iyagana iska ilaali because of kalsoonidaada wax qiimayaan okay marka ugu horeysa waa stage ahaan marka la eego traderku meelaha marxaladaha soo maro qofka traderka wey stage 1 waa the worst trader in the world waxaad iminka tihiin dadka ugu dee trader gareed dadka ugu liitaa maanta ugu dee waxaad tihiin liitaa marka la eego suuqa meesha aad ka maraysaan iyo meelaha aad isticmaalaysaan suuqyadiina lacagihiina okay qof walbana uu maraa stageka traderka maanta millionska ku xisaabtamaya ka billionaireka iyo ka kaleba iyo adiguba marxaladaad ka wada simantihiin weeyaan gebina way wada gaaraan stage 3 oo loo yaqaano the best trader in the world waxaad noqon kartaa traderka ugu fiican ee adduunka jira adiga oo maaragtay inay committed haddii aad u tahay successka guushaada haddii aad committed u tahay amba horta guulahan gaadhaysa seed ugu tahay committed waxaad ugu tahay marka hore kalsooni baa lagaaga baahan yahay suuqii wuxuu kaa rabaa dadaal buu kaa rabaa inaad waqti siiso maalin walba 2 saac 3 saac sii at least limited time iyo limited amount ku trade garee waxaad aragtaa maalin kasta progress baad samayso waxaad sarki maalin adigoo caajisan oonan filinin bay inuu isbedel kugu dhici karo adiga automatically suuqa jihadiisa sii dareemaya instincts DNA-da bini'aadamku waxay save garaysaa waxyaabaha maalin walba ku dhaca so routine haddaad ka dhigto way save garaynaya suuqaasi jiha walba u jeedo automatically isagoo indicatorku inuu kor ka soo noqonayo aad moodayso yaa dareemi haddana inaan weli hoos ka dhammaan ood automatically sell u gali waxaasoo dhan adiga automatically u ogaana waa marxaladda aan anigu maanta joogo aniga automatically suuqu ii sheegay inaan kor sii tago ayaabaan haddana okay wiil walaalkeen wuxuu soo qoray kuma maqlo marka ma isaga ayaa mise waxa weeye the whole mise waa the whole session dadka ku jiro okay filaya qofku ka maqan yahay microphone okay Cabdilatiif uu ka maqan yahay ninka walaalkeen ah ee soo qoray hadda okay caawiya please inta uu socdo sessionku so sidaan idin sheegayba waxaan idin sheegay waxa loo yaqaano pollinators ama waxa loo yaqaano horaan idinku soo sheegay indicatorska inta aadan isticmaalin waxaad ku dadaalaysaa waxa loo yaqaano waxyaabahan kor idinku soo sheegay haddii aadan waxyaabahan karayn please waan kula talinayaa maalin walba su'aalaad meesha iga weydiisaa waxaad i tiraahdaa waxaan muxuu yahay sidee waxaan u qabanaa waa sax baan idinka jawaabaya anigu laakiinse waxay ka dhigan tahay adigu committed ma tahay anigu xaqiiq ma ka gaadhay anigu waan ka gaadhay maalin walbana lacag baan ku xisaabtama maalinta aanan trade ku xisaabtamayna waa maalin aan ugu talagalay inaan maalin kale tuso so idinku ku dadaalaa stage 3 waa la wada gaaray gebi waa la wada maray waxa weeyaan chatkan hadda idinka hooseeya maxaad aragtaa ma aragtaa qof successful deals inuu furan yahay garan kartaa ama deals successful inuu chartkaas u furan yahay ma akhrin kartaa automatically adigu isweydii macnaha linkaasi iska socdaa kor iyo hoos bis kaga socdaa meel alla meel u tagay ma garanaysid soo ma ku maxaa la yidhahdaa aad ku kalsoonaan karta baa mise waa mid maaragtay aad maaragtay ka faa'iidaysan karto okay waa
aad buu isku beddelaya waa runta waa unstable ma arki kartid laakiin wuxuu ku leeyahay halkan ma arki kartid macnaha inaad akhridaa way kugu adagtay laakiin markaad isticmaasho toolska ama technical analysiska hadda maxaad aragtaa hadda waxaad aragtaa waxa loo yaqaano resistant support resistant support resistant okay waxaynu wada arkaynaa resistant support resistant support waxaad arkaysaa imika chartka haddaba waad akhrin kartaa okay real chart waa markan uu cas yahay suuq waa sidaa indhahaagu beri waa inay sidan u akhrin karaan adigoo oonan tools isticmaalin maanta se toolskan oo kale inaad line soo qaadato oo linka ku analyze garayso ayaad u baahan tahay how you should see it si aad ugu aragto resistantka meesha supportka iyo resistantka waa si aad ugu aragto okay hadda maxaad aragtaa trend baad arkaysaa waxaad arkaysaa linka soo socda waxaa loo yaqaano trendkan muxuu yahay trendku waa inay sheegay waa suuq xaggu jihada u haysto hadduu kor u haysto kor baad maanta inaad trade-ka u badato isku dayaysaa hadduu hoos u haystana hoos inaad u badato ayaad isku dayaysaa so you can see waxaad arkaysaa waxa loo yaqaano chartkaasoo kaa caawin doona waxyaabaha ku saabsan trade okay trend up ah baad arkaysaa trend up ah oo kale baad arkaysaa waa suuqa macnaha sidaad inaad u aragto tahay linkan madow wuxuu inoo sheegayaa in suuqa sidaad u aragto tahay kan kalena waa real chartkii oo suuq waa sidiis kaga socda so adigu waxaad isticmaalaysaa technically moving averageska iyo waxyaabahan idiin soo sheegay adigoo isticmaalaya indicatorskaaga indicatorku wuxuu kaa sahlaya markaad binary and digital options jihada suuqa u haysto laakiin support iyo resistance aad ku ogaanaysaa support iyo resistance horaan idinku soo sheegay markuu suuqu up taagan yahay markuu down taagan yahay ayaad ku ogaanaysaa hadda maxaad aragtaa inuu resistance xagga sare ka taagan yahay supportkuna hoosta yahay supportyada uu gale waad arki kartaa resistanada uu galena waad arki kartaa okay isticmaal technical analysis baro si dhab ah u qaado si daacad ah u qaado serious u qaado ka dhigin wax dheeldheels iyo marka technical analysis isticmaalso si seriously aad u isticmaalso adiga oo stay away from rich scams quick rich scams macnaha hore u taajirkan iska saaro maskaxda ku jira markaaba quick rich scam adiga oo markaaba doonayna lacag taabo account manageriska waxa loo yaqaan scammers waxa la yiraahdaa jira signal baan ku siinaynaa in lacagtaa soo shubay ku oranayaan iyadoo Soomaalida maanta aad ugu soo badanaysa qaybta forex-ka waxa lagu leeyahay signalan ka iibinayna signaladaas yaan kaaga iibino isticmaal nooca loo yaqaan waxyaabaha loo yaqaan account manager account-kaagan lacag noo soo shub waan ku signal baan ku siinaynaa signal inay ku siiyaan ma waa inaad signal samaysataa waa inaad adigu ka adkaataa waxa doonayso okay signal providers wato ku signal providers ka iyo account managers quick rich scams totally iska ilaali dad aragto nin kula soo hadlo ku dhaadan iyo lacag baad hore ugu taajiraysaa lacagta soo dirso iska ilaali waa khiyaali halkiisa ah oo ma aragtay waxa weeyaan lacag lagaga qaado okay invest in marka lagu dhaxdo iska ilaali iyagana waxa jira qolooyin iyagu intay ku dhaadaan invest hadhowna si fudud ku eengare ku oranaya iyagana waad iska ilaalinaysaa markasta qolooyinka hadda IQ option waa ka mamnuuc inaad contact information la samayso qof kale oo trader ah haddii aad la samayso platform-ka laga saaraya blockna laga saaraya dib inaad uga register karayso passport waa laga ilaalin doonaa waxa soo biirin waa inaad ka hortagto robotiska marka lagu dhawo waxa aan idiin sheego mar walba waxyaabaha robotiska aamin lacagaha aad ku lose garanayso robotiska aamin waa inaad naftaada ku kalsoonaataa by the way haddii aad professional free inaad ku noqoto ma jirto kulli waxay ka qaadan doontaa inaad professional noqoto time waxay ka qaadan doontaa lacag sidoo kale hadda time waxay ka qaadan doontaa time-ka ugu yar baa lagu leeyahay 2 years laakiin adigu maxaad hadda baaxaysataa Soomaaliga ku fahmaysaa ugu yaraan habeen walba ku seexo oo soo kac inaad trade gasho muddada waad soo minimize gareyn waxaad ku minimize gareyn kartaa is eeg maalin walba progress-ka aad sameynayso maalin walba horumarka aad sameynayso is eeg indicators patterns iyo strategies waxa la yiraahdo maxay yihiin waxyaabahaas oo maxay yihiin indicators maxaa la yiraahdaa patterns iyo strategies goal kaliya wada leeyahay inay ku sheegaan reversal point meesha dambe oo suuq u jeesanayo iyo meesha uu ka soo jeesanayo reversal point waa kan xagaas ka soo jeesanaya hoos buu socdaa okay xagan kor buu taagan yahay wuxuu socdaa hoos non reversal point waxa loo yaqaan weeyaan shayga loo yaqaan indicator hadda waxaad arkaysaa
suuqyadaasi meelaha ay u jeedaan haddii aad u fiirsato waxaad arkaysaa waxa loo yaqaano inaad reversal points iyo non reversal points aad arki karto adigoo isticmaalaya indicators noocay doonaan ha ahaadaan waad lose garaynaysaa markaan ku raahdo waad lose garaynaysaa dabcan si fiican baad weliba u lose garayn laakiinse waxay ku xiran tahay aduu halkeed ku xidhaa ganacsigaaga xaggee baad ku dadaashaa mar walba inaad u leexato xaggeedse mar walba u jeedaa sideedse ku noqonaysaa professional trader maanta guul ka gaari kara suuqyada noocyadooda kala duwan aad wada arkaysa hadda suuq baa tegaya iska sii socdaa ani maxaa iiga danaa marka waxaa iiga danaa inaan suuqaa soo baxo aan eego xagga uu mari karo iyo xagga uu ujeeda aan analyzing ku sameeyo inuu up u toodo korna uu sameeyey lines baad arkaysaa xaggaa resistant buu ka sameeyey xaggan resistant buu ka sameeyey xagga kale resistant buu ka sameeyey xaggana resistantkaasi uu sii socdaa hadda inuu breakout kaluu rabaa laakiin even though uu hoos usoo dhaadhacayo suuqaasi okay marketska markaad eegayso adiga oonan aqoon ku fiisgaraynin hageli laga yaabaa markaaba inaad gasho laakiin isku day inaad kasoo kabato khasaaraha markaad qiimo isticmaalayso haddii aad degdeg ku gasho adiga oo og inaad qaldantay waxaad challenge u haysataa inaad lacagtaada ku manage garayso si aad kor ula soo bixi karto lacagtaada ama aad maaragtay profit uga dhigi karto lacagtii marka hore kaa khasaartay okay let's see haddaba waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano demo account okay kaasaan doonaya inaan galo hadda kaasaa hoos u socdoon arkaa hoos buu sii socdaa laakiinse aanu buy ayaan ku galay because of chanceska uu buy ku galayay baa batay oo ah inuu marka hore kor taagnaa haddana uu u socdo hoos laakiinse uu kor sii haysan karo isaga oo aad haddaba sidaad video ka arkaysaan isagoo hoos u soo boodaya aad arkaysaan laakiin anu buy baan u galay no matter what waxaan ugu talagalay momentka ku xigay inaan khasaaraha kasoo kaban karo si aan khasaaraha uga soo kaban karo buy baan u galay $100 ah $77 ayaan hadda accountka ku haystaa okay so markaad galayso haddii aad galayso markasta buy waxaad ka dhiganaysaa shayga loo yaqaano candlestick timekaaga ama candle chartskaaga 1 minute ka dhigo 1 minute markaad ka dhigato waxa weeyaan candleskan isbabedelaya degdeg isku babedelaya kaa nixinayay way kaa yareynayaan halkii minutena hal candle baa socdaa okay aynu eegno mar labaad hoos buu socdaa haddana marka uu hoos u socdo waxaanu isla garanay inuu buy u noqonayo laakiin hadda waxay noo cadaynaya indicatorku inuu weli hoos sii haysan karo so si uuna hoos u sii haysan hadduu linku in badan hoos u dhaadhacay buy waad odhan kartaa hadduu laakiin half dhaadhacay hoos buu weli usii soconayaaye iska suug anigu waqtiyada aan galaayo waa isagoo dhexbartan iska maraya maanta waan gali karaa waxaana ku samayn karaa lacag isaga oo meel aan loogu talagelin jooga aniga oo ah risk taker laakiinse meeshan khamaar looma joogo cidda khamaar doonaysaay waxaa jirta kasiinooyinka online baa lagu ciyaaraa iska tegan kuwa haddaneeyaan laakiin teamkeenan waxaynu ku dadaalnaa inaan guul sameyno insha allah guushaas oo ah mid horumar iyo maaragtay aynu hiigsanayno waxa loo yaqaano midho dhalkaasi waxa weeye shaqo walba noloshaada soo qabatay ama tu kastood ku hamiyeysay waxay kaaga baahan lahayd marleyba waxa loo yaqaano dadaal la-aantiin maxamed qabateen maanta dadaalkiina naftaada gelisaa xaqa leh suuqaasi sel buu isku bedelayaa sel maadaama isku bedelaya anigu inaan positionka ka galo ayaa ilaa gudboonayd so hadda inaan buy u raaco keliyan chance haystaan buyna uma raaci karo anigoo riskiiska ilaalinaya maadaama oon hubo suuqan inuu jihada labada jiha buu jeedo okay hadda sel buu ku jira selka in yar markuu sii haysto buy buu u noqonayaa wax yar kadib so maadaama buy usoo noqon doono buy buu u noqday saan idiin sheegay haddana sel buu isku bedeli sel markuu isku bedelo laynku markuu halka ugu hooseyso soo taabto buy buu ku noqonayaa candlekaasi inuu buy ku dhamaado ayuuna rabaa laakiin waa la celcelinayaa maadaama uu suuqo imika inuu sel gala rabo in badan uu kor soo haystay indicatorku so indicatorku siduu kor ku haystaa iyo siduu hoos u tagaa waxaa waan idiin sheegi doonaa inagoo ku base garaynayna waxa loo yaqaano candlesticks way ku caawinayaan okay so hadda muxuu ka leeyahay suuqa newska ah technical analysiska uu ka leeyahay euro USD
leeyahay waxa loo yaqaano technical analysis strong buy buu leeyahay so a strong sell waa strong buy halka maxaad aragtaa waa strong buy technical analysis waa strong buy so robot kaad raadinaysaa xagga kugu jira hadii aad garanayso sida loo raaco adigoo ku base gareynaya aqoontaada so hadda strong buy buu suuqa euro USD u badanaya strong buy weeyaan maadaama korin badan soo ahaa strong buy ayuu ku badan yahay suuqaas so hadda inuu kor u baxo ayaan isku dayayaa bal lacagtayda meesha ay martaa in eegno hoos u soo bax si aan kor u galo kor buu iga noqday maxaa idin sheegay kor hadduu kaaga noqdo ha gelin intuu timekaagu dhammaan hadduu hoos u soo baxo kor u raac marka because of wuxuu joogaa hoos markuu soo taabto gidaar yar oo ah resistant supportkaa markuu joogo wuxuu noqonayaa xaggii resistantka isagoo gidaarka sare inuu tago doonayaa so strong buy buu u badan yahay suuqani buy inuu u badan yahay waxaad ku caddaynaysaa maanta meeshaas kasoo bilaabay waxaan jeedaa hadda halkaas kasoo bilaabay waa daqiiqadii u dambeeyey okay strong buy waxaan rabaa maxaynu idiin sheegay markuu buy galay inuu hoos usoo dhaadhaco markuu hoos usoo dhaadhaco inaan buy galo hadii laakiin isagoo halkaas ka taagan aan buy galo dee gidaar mar horuba sii dhamaystay safar buya marka labaad inuu gidaar kasoo noqdo baa hadhay 1 minute okay hoos markuu usoo dhaadhacan raaci karaa hadduu green ku noqdo waan ka joogsanayaa anigoo ilaalinaya lacagahan ku galayo iyo sida aan u ilaashanayo dhaqaalaha buy buu ku noqday waan ka joogayaa maadaama uun buy rabo hoos inuu ii tagaa iidan ah aniga markuu hoostan joogo buy waan u gali karaa uu hoos soo taabto because of buy buu isku bedelaya sidii videoga traderkii koowaad hadda idiin sameeyey ku cesha traderka koowaad saan u sameeyey videogan si aad u ogaato meesha sidaan buyga u galayay adigoo hoos ka raacay so haddii aad mobile isticmaalaysana buyga kor u raac sidaad u isticmaasho mar walba ku dadaal okay kanna muxuu ka yidhi inuu eegno newsku wuxuu leeyahay euro Canadian dollar okay euro Canadian dollar waa kan muxuu yidhi technical analysis kiisu waa sell waana strong sell okay strong sell let's see strong sell buy ha tago kaasina markuu buy tago ayaan sell u raacaya okay buy ha ii tago buy markuu tago sell buu igu soo noqonaya hadda meel fiican buu sell uga sii socdaa waa strong sell laakiin lacagtaada ilaasho because of positionka aad galayso maxaa idiin sheegay entry point-kaagu ha noqdo ITM meel u qalanta inuu suuqaasi ku dhamaado inuu sell tago ha ahaado candle-kuna mar kasta waa inuu aad uga sarreeyaa OTM-ka lacag so waa strong sell markaan strong sell garayo waxaan isticmaalayaa waxa ah suuqa inuu kor igu soo noqdo anigoo isticmaalaya inuu hoos aan u galo okay hadda in yar buu dib u soo noqday hoos buu noo noqon doonaa laakiin ma gali karaa mise ma gali karo okay inaan galay aniga igu xiran tahay laakiin guushayda waxaan jeclay inaan mar walba verify gareeyo markaad money management isticmaalayso lacagtaada qaybsanaysa yaryaraysanaysa trade waad gali kartaa si aad cover up marka dambe u samaysato laakiin trades ma gali kartid adiga oonan maaragtay aanan gelin waxa loo yaqaano strong sell buu weli ku jiraa laakiin positionka ka galaya meel up ah baana rabaa si aan idinku tuso aan waan aqaana meeshaan ka galayo laakiinse idinka inaan idin faa'iideeyo meesha afka exactly sidan aan u galayo aad ogaataan marka taa ogaataan automatically dhex hadduu joogano sida sado iyo buy ku socdo waad garan hadduu hoos joogano buy iyo sell mid ku sii soconayo waad garan hadduu kor joogano waad garan kartaa sidoo kale sidaan filayo weli suuqaasina wuxuu ku jiraa buy sell buy inuu kusoo noqdo si aan sell u galano waan rabaa kanna maxaa laynoo sheegay inuu strong buy yahay markuu si strong buy yahayna hoos buu soo soconayaa markuu hoosta soo dhamaysto ayuu sell kusoo noqonayaa okay hoos soo bax markuu hoos soo baxo ayaan buy u galayaa okay haddoo kale inaad gashaay waad kuu furan tahay because of strong buy mididadoo dambeysoo dhan buu u socon yahay adiga oo agaya inuu kor suuqaasi dib u noqdo waana u noqday sidaan kuu sheegay markuu candle-ku hoos usoo dhaadhacad aragto inuu estimationka ku socda hadduu boodiyo orodku ordayo waad u raaci hadda waxaan idiin sheegay inaad hoos usoo geli karaysay si aad kor u gasho markuu hoos joogay inaad geli karaysay
okay hadduu degdeg u socdo isbabedelayo ka joog waayo distance buu ku boodayaa badan doonaa laakiin hadduu ayar intuu hoos soo taabto uu noqonaya because awood baa lagu celinayaa oo waxaa celinaya bull ama buy waxaa celinaya inuu suuqaasi buy u galo ayaa celinaysa so candle-kan ka xigayna sell inuu noqdo ayuu rabaa markuu sell noqdaan anigu buy u raaci doonaa hadduu buy ii noqon markuu xoog sell u noqon waayo buy buu ku bilaabmay buy hadduu ku bilaabmay iska joog maadaama buy galayso buy inuu ku bilaabmo ma waa inuu sell ku bilaabmaa candle-ka aad buy ku galaysaa mar walba waa inuu sell ku bilaabmaa hadduu candle because of in binary minutes baad xisaabinaysaa candle-kii ma second baad xisaabinaysaa candle-ka ma xisaabinaysid waxaa loo yaqaana 15 minutes day trade marka la eego okay hadda buy buu ku bilaabmay inaan galayo waa shay meesha aan oolin sell hadduu ka ku xigay bilaabo sellka uu ku bilaabay baan markaa doonaya inaan up u galo anigoo isticmaalaya indicatorka iyo informationka aan maaragtay idiin soo sheegay si fiican oo isticmaalaya okay let's see meesha uu maro buy buu ku bilaabmay kaasina maxaa idin sheegay sell buu sii soconaya of course sell buu sii soconaya marka uu buy ku bilaabo haddaad buy inaad u gasho rabto ha gelin because of buy buu ku bilaabo marketka buy socda strong buy buu socdaa suuqu laakiin hoos buu soo dhamaysanayaa kadib marka dambe uu dhaafi doonaa lane-kaas maxaan ku raahdaa resistance-ka uuna kasii dheeraan doonaa resistance-ka soo socdaay inta so suuqan iyo waxyaabaha idin sheegaya ku ceshada si aad u fahantaan okay sell waa inuu ku bilaabmaa candlestick ama candle-ka aan rabaay si aan buy ugu gali karo waa inuu sell ku bilaabmaa so muxuu doonayaa inuu resistance soo taabto wuxuu doonaya inuu support soo taabto so support intuu soo taabanaya waa iska sugayaa meelahan ka noqonaya maadaama strong buy yahay resistance-kiisu maaha inuu line-ka kasii hooseeyo waa inuu kor uga noqdaa haddii uu intaa ka hooseeyo waa inaad yar sugtaa si aad maaragtay u gali karto okay buy buu isna ku bilaabay buy-gaasi ka ku xigaayo waa inuu buy noqdaa hadduu buy aad usii galayso hadda buy buu bilaabay si fiican buu buy-gaasina u socdaa complete weeyaan isma celcelinayo marka hadduu buy-gu complete noqdo haddii uu buy-gu complete noqdo waad sii galaysaa because of buy-gii already uu bilaabay laakiin haddii aad aragto isagoo sidan u soo socda sell buu ku socdaa wuxuuna isku noqonayaa strong buy buu mar waliba suuqan u socdaa markuu buy galo waa guaranteed oo degdeg buu baxayaa sida kandaladan hore aad usoo aragteen ee dhaadheer ayuu samaynaya markuu buy galayo markuu sell galayana ayar buu daadegayaa oo ma rabo inuu sell suuqani aado wuxuu rabaa inuu buy dhinaciisa u dhaqaaqo walow saan filayo timeka u haray marketka okay time fiican buu haystaa laakiin faa'iidadu wayse sii dhintay inihii waa laga sii baxaya okay weli ma aragno candle-kan doonayni ma aragno okay haddaan buy u galayo haddaan sell u galayo kani muxuu inoo sheegayaa kan strong sell ayuu ahaa strong sell maadaama uu ahaa sell buu in badan soo ahaa buy buu markuu noqdo ayaad sii raacaysaa saan idiin sheegay labadaa mar buu buy noqday si aad sell usii raacdo okay hadda sell buu ku jiraa laakiin positionada aad ka galaysaan guaranteed-ka ah si aad u practice garaysaan waa inaynu si fiican iskula eegno exampleska iyo waxyaabaha idiin sheegayna mar walba ha noqdaan kuwa idiin faa'iideeya suuqan aad aragtaan buy buu in badan ku jiray oo ah USD iyo Japan yen JPY sell buu imikaynu kusoo noqdo rabaa hadduu sell dhinaciisa uu ku bilaabo candle-ku oo uu red bilaabo buy baad u galaysaa waxaa idiin sheegay candle-ku hadduu sida uu u socdo maaha candle ku xiga uu bilaabo ha aaminin hadduu imika buy bilaabo inuu soo noqdo waa laga yaabaa laakiin hadduu imika sell bilaabo buy buu weli sii galaya okay buy buu bilaabo buy buu kusii jiraa marka uu kaa tago suuquna entry point ku filan maaha macnaha si aad profit fiican uga hesho so waa inaad iska sugtaa hadduu sell laakiin kuu bilaabo weli buy buu sii haanayaa so yaanu idin qaldin kaas oo fiican waxaan aan idiin sheegayo oo dhan waa out of waxa loo yaqaano khamaar okay kaasi sell buu bilaabay sell buu xoog u socdaa haddaan hadda buy idhaahdo sell buu sii socon laakiin buy ayuu u noqonayaa isagoo sell u socda ayuu buy bilaabayaa lanekiisu laakiin meel fog ayuu gaadhay markuu meel fog gaadho guushaada waad siin kartaa inaad ku dhaqaaqdo
adiga oo waxa idin sheegay sameynaya hadii uu yahay suuqa hoos buu socdaa saad arkayso laakiin markaan anigu hadda geliyay meel gidaaru soo taabtay baan geliyay gidaarka inuu jiidhona waa dhacdo inuu kor uga noqdayna waa dhacdo markaan practice ka samee leedahay waa inaad isku dayi kartaa in aad instinct ahaan dareen ahaan ku fahantaa suuqa buyga suuqa selka suuqaasi candle-ku aad buu u dheeraa maadaama uu aad u dheeraa waxaan u galay buy maxaan idin sheegay euro USD inuu strong buy yahay gidaarkii uma soo taabtay hawa soo taabtay okay anigu marka hadda aan trade gareynayo ma waxaan ku trade gareynayaa shayga loo yaqaan khamaar mise aniga oo idinla socdaa doonaya meesha aan doonayo inaan geliyo si aan lacag u faa'iido dabcan meesha aan rabo ayaan lacag idin gelinayaa hadda 70ka iyo 5 dollar aad arkayso waa demo really-na adigu taas teedii unbaad ku trade gareynaysaa inta hadda aad arkaysaan waa in aan anigu minute real ahaan ugu shaqeeyo laakiin adigu limitka inaad gaadho waxa kaa xigta anigoo Soomaaliba waan keenaye adigoo Soomaaliya walaalkii maxaa ku diiday waxa weeye waxa ku diiday waa inaad adigu isweydiisaa meeshan khamaar ma jiro cidii khamaar doonaysay ha tagto qiimanka iyo meelaha lagu khamaaro meeshan ganacsigaaga walaalow inaad ku khasaarto ha u soo gelin ganacsi waad ku khasaaray haddii aad u soo gashay inaad ku khasaarto haddii aad taxadir leedahay aadan lahayn maxaa la yiraahdaa waxa weeye aadan lahayn taxadir su'aasha la weydiiyo waxa weeye strategy baad isticmaashay strategy-ga aan isticmaalayay aniga indicatorska waan ka tagay indicator-ka ka aan doonaba maanta gashan karaa moving average-kana ka aan doonaba ka dhigan karaa because of aniga isku filan maanta suuqii aan la iskareeyay marxaladda aan idinla rabano waa inaad idinku wax idinku samayn doontaan indicators qiyaasan baa idin samayn doonaa waa idin sheegaya xagga indicator-ka ka bedeli doontaan telegram-kana idin dhex dhigaya practice ku samee so waxa idin sheegay markaad suuqa galaysaan sell haddaad buy strong buy weeyaan maxaan sameynay waxaan soo qaadnay newska xagga yar information kan ku dhufanay waxaan niri technical analysis-ka sell buu waa strong sell laakiin sellkaasi xoog strong sell uma aha saad arkayso waxa weeye hal neutral iyo hal buy ayaa jira sidoo kalena 15 sell baa jira so haddii aad 17 macnaha 15 haysato ITM iyo OTMs 15 kaasi sell bay u badan doonaan ITMs haddaad rabto sell u badi kadib waxaad ogaanaysaa ITM yadaada badan strong buy markuu ku raahdo waa yahay suuqa strong baan eeganay anu sell baan buy baan eeganaya hadda buy buu bilaabay ma kuma kalsooni inuu buy-ga ku socdo because suuqii baa sell ku jira marka aan rabo inaan ku kalsoonaado inuu candle-ka ku xigay meesha ka sareysa buy ka bilaabo halka hadda uu joogo waa inuu meesha ka sareysa buy ka bilaabaa kadib kaabadii baa sameysmaysa indicate candles ku dabeecad bay leeyihiin iyaga laftoodu u baahan inaynu gaar u fahno waxaana loo yaqaan Japanese candlesticks Google gareeya baara research ahaan baara sida isku bedelaan si aad u ogaataan Japanese candlesticks ku dabeecad bay leeyihiin indicator kuna dabeecad buu leeyahay strategy la imanaysa dabeecad iyo adiga wax ku gaara inay yeelato kaaga baahan hadda maxaan idin sheegay inaan buy u galo suuqaas oo kale hoos buu socdaa so maxaan sameynayaa buy ayaan u galayaa hoos ma igu sii socon karaa maadaama 19 second ay hareen haa way igu soconayaan so haddii aan investment-kayga kordhisto waxaan doonayaa inaan meelahaas oo kale buy ka galo hoos buu sii socon kadib inuu kor soo noqdo ayuu awood iskugu dayi doonaa suuqani muxuuna awood iskugu dayayaa inuu hoos kor soo baxo because of waxaan idin sheegay strong buy markuu yahay walow uu hoos u sii socon karo suuqu waa haddana kor kuugu soo noqonayaa because of meesha aad ka gashay waa sell gidaar baad adigu ka gashay suuq gidaar markaad ka gashay calculator baad tahay qof xisaab ku socdaa tahay waxaad meesha ka banaysay inaad khamaarto kalsooni baad ku soo gashay kalsoonidii aad ku soo gashayna waad ku sii jirtaa okay maxaa idin sheegay suuqaasi inuu strong buy yahay suuqii strong buy-gii muxuu ku dhamaaday $75 oo kale so maxaa idin sheegay iminka inta aad la joogo lacag real aan anigu shaqaysan lahaa laakiin waqtigeyga idinka iga qaalisan oo maanta aan rabaa inaan sameeyo 100 aniga maanta haddaan sameeyo waxa laga yaabaa inay Soomaalidu dhiisha ku jiiso oo aad idinkuna caawin doontaan laakiin se isku day meesha khamaar ma jire waxaad isku daydaa inaad naftaada iyo kalsoonidaada la timaado walaalo haddii aad khamaar la imanayso meesha ka maqnow mar labaad iyo mar saddexaad waa idin leeyahay waxaan idin sheegay trade-kan labaad inuu yahay kii saddexaad inuu yahay sidoo kale maxaan ku galay strong buy baan ku galay
isagoo oo sell u socdaanan buy u galay maxay ku dhacday because of sell buu ii yimido buy baan doonayaa ana faa'iidayda buygaana waan ku socdaa so meelahan ka galay cashirkan caawa aad u duubo waa inoo duubay waxaan soo gelinayaa YouTube okay anigu haddaan khamaar u yimiday hadda maxaan boqolkiiba at least 75 u badin waayey oo 100% waxaan idin sheegayo sidooda ay ugu dhacayaan because of marketka binary and digital waa wax u baahan inaad adiga ka go'naato haddii aad khamaar rabto wuu eegyahay dabcan khamaar because of waa binary waxaan waa suuq waxaan casaan iyo blue aad green ka arkayso hanti dhan oo dawladeed baa isdhaafaysa shirkado dhan baa xooluhu isku dhaafsanaya so chance baad u haysataa marka aad weydo chance-ka si aad uga faa'iidaysato ha qoomameyno ha canaanan suuqyada maaragtay dadka platformada oranin waa meesha khamaar baa loo imaadaa iyo expert option aniga Soomaali badan baa markaan idiin soo bandhigay Facebook waxay igula taliyeen inaan iska daayo waxyaabahan aan dadka barayo sababtoo ah signals bay doonayeen signals in iibsadaan bay doonayeen dadkina signal kiibiyaan adeero maxaa ku waalay baa leeyahay guud aniga ma iska shaqaysatid aqoontaadana ka faa'iideyso Soomaalida kullee markay ka bartaan waxba bari ku gudi maayaan anu waxaa yiri inaan ka faa'iideeyo weeyaan hadafkayga inaan anigu dib wax uga helo maba ahaba energy-gaan helayaa ina waa faa'iidada idinka idin suuqan muxuu ahaa ma strong buy buu ahaa Australian dollar euro iyo Canadian dollar aynu eegno waxaan isla eegnaa euro iyo Canadian dollar okay euro Canadian dollar waa kan 75% uu marayaa halka hooseysan ku jira suuqyada ugu horeeya kuma jiro so waxaan isla eegaynaa euro iyo NSD waxa loo yaqaan euro iyo NSD halkuu joogaa euro iyo NSD marka la eego wuxuu ina leeyahay waa neutral wax technical analysis miyaad aragtaa may kuma jiro technical analysis because of lama analyze karin suuqa technically iskaga soo bax mashiinka macnaha macalkuuma analyze karinin platformku waxaad eegtaa JPP iyo JPP iyo USD intaynan soo furin waxaan isla eegnaa waxa loo yaqaano news technical analysis ku leeyahay technical analysis kiisuna waa neutral marka maad galaysaa ma galaysid lacagtaada iska hayso hadday ku cuncunaysana meesha iskaga khasaariyo tiraado lacagtaasa ila igeli meesha way ku oran doontaa waxay ku oranaysaa niyow lacag baa sameynaya meesha invest garee laakiin se naftaada ha ka yeelin haddii aad ka yeesho khasaaraha ana hadhow tole naftaada ma qaadanayso mas'uuliyadeeda neutral oo kale kelin waa iga talo sidoo kale waxaynu eegaynaa lacagta loo yaqaano okay let's see USD iyo Japan yen USD iyo Japan yen egg ma jiro isna technical analysis so waxyaabahaas oo dhan marka aanay jirin iska daa haddii aad barbar tahay maadaama oodan adigu nafsiyan markaad IQ option timaado forex isticmaalin waxa isticmaalaa binary and digital options waxa imika jira Islamic account dad baa ka sheekeynaya xaaraan iyo xalaal waxaan idin sheegayaa walaalahaygaas Islamic account bay ku sameynayaan IQ option iyagoo ixtiraamaya diinta Islaamka no benefits baad ku shaqaysanaysaa profitka ay ku soo sheegeen maaha mid xaaraan waa mid xalaal ah Islamic benefit waxa jira account markaad Soomaaliya ka sameyso waad arki doontaa ma Islamic account baad rabtaa ma normal account kuma laha wax dambiya Islamic account laakiin waa lagu sii confirmeeyay because of dad badan baa waxay isweydiiyeen xaraam baa mise waa xalaal shuyuukhdeenu badanaa may soo gelin suuqan soo iyagu kitaabkii sidii ay u fahmeen oo eegayaan laakiin xaqiiqdiisa shuyuukh badanna waxay u arkeen inuu yahay wax ganacsi hadduu yahay wuxuu xalaal yahay qaarkood u jiraan iyagu ka sheegay laakiin waxyaabaha ay taabteen suuqani kuma jiro adiguna dad naftaada u baad waxaan filayaa suuqu intaasuu naga eegaya maadaama uu naga diiday inaan technical analysis kale uu sii yeesho marka laga reebo kuwa aan idiin soo sheego ah kanna hadduu neutral kusoo noqonaya isagana iska daa oo strong cellka 16 cells baa jiray iska daa isagana okay never mind xaggee inoo socotay marka cashirka waxay inoo socotay waxyaabahan idiin soo sheegay oo dhan
waxyaabaha idiin soo sheegay oo dhan haddii aadan ka faa'iideyna waxa fiican inaad ku dadaasho inaad bal at least naftaada maaragtay aad gooni intaad ula baxdo aad ka faa'iideyn karto wax walbo meeshan agtaada ka dhacaya aqoon walbood samaynaysaa waxay ku xiran tahay wax loo yaqaano khibrad khibrad haddii aad kororsato maanta wax badan baa ku faa'iidaa so khibrad haddaad kororsato adigana ku dhibi mayso ganacsigaagana dhibi mayso ganacsigan markaad sameynaysana maaragtay isku day inaad aad u dadaasho waana iga talo midda kale hadhow toole sadaqa iska bixin mar walba ku dadaal oo maaragtay sidii ganacsi dhab ah oo kale niyad ahaanna ha kaa noqoto yani kaa noqon waxaad meesha iskaga yar eegto shaqada caadigeed maalin walba qabatay si aad ku bedeli lahayd siday ku noqon lahayd ku fikir adiga oo marka aad shaqadan meel sare heera aad ka gaadhana naftaada boosa noqon karaya haddii aad iska joogtay ama aad sidayda soo ahayd yaraanta macnaha marka intaanan ganacsiga bilaabin oon anigu iska badiyey sidoo kale waad iyada lafteeda waad maxaa la yidhaahdaa maanta chance baad haysatay ka faa'iidayso waxaan filayaa sessionka intaasuu ku ekaan doonaa maadaama aan ku jiray in badan waxaan rajeynayaa in muhiim ah oo la fahmi karayo meeshan idinku duubay fadlan ku ceshada sida aan tradeska u galay so 3 trade oon galo ayaa maalintoo dhan ka qiimo badnaan kara 1 trade oon sameeyo okay 100 trade oon sameeyo ayaa ayaad ku faa'iideyn kartaa maalintii 3 trade oo keliya kaga faa'iideyn kartaa 100 trade oo sameyso so anu 3 trade maanta sameeyey wax badan baa idiin sheegay waxaan idiin sheegay waxaa kamid ah waxyaabaha loo yaqaano maxaan ku rahdaa waxyaabaha loo yaqaano inaan maaragtay aad hal mar trade la imaado halkaa mar aan ku trade gareeyo mar labaad aan galo qaybsado aan ku trade gareeyo marka saddexaad aan idhaahdo out iska bax so adiguna saasoo kale biri noqon doonta insha allah horaad u maaragtay u gaari doontaa guusha waxaan guusha lagu sheegay ayna waqti bay qaadataa wax maalin keliya lagu gaaro maaha wax maalin ku taajirina maaha wax la iskaga ciyaarana maaha guusha lagu sheegay iyo xaqiiqda lagu sheegay wax la taaban karo anigu guul baan taabtay waan hayaa maanta inaan meesha kugu faanfaanano maaniman inaan ku faa'iideeyaan imiday haddii aan faan doonayo heerkan maan soo gaadhin maanta laakiin xaqiiqda qof xaqiiq garanaya maanta ahay dhibtaan usoo maray markaan eegana waxaan ogahay dhibtaa dhibteedii inaad idinkuna hadhowtoole u mari doontaan so dad dhibtaa maraya in maaragtay aad u samayso bragging waxa weeyaan waa wax ku keenayaba matiidba trader so anigu bragging mihi haddaan wax idin tusano waa motivation haddii wax idinla wadaagana berri inaan waddadaa idinla rabo oon ogow videoyadan iyo waxana selfless weeyaan wax selfishnimo ah oon ka rabo ma jirto idinka faa'iidaysta waa iga talo faa'iidaysta isku day mar walba inaad suuqyadan gali kartaa haddaad forex hesho haddaad binary hesho intaba ka trade gare isku day inaad trader noqoto mashiinka lacagtaad noqonaysaa lacagtaada mashiinkii lacagtaada way noqonaysaa insha allah cashirka intaas ku ekaan doonaa waxaan rajeynaynaa insha allah ku ceshataan videoga intaasuna inoogu ekaan doonaa sessionku waana salaamayaa dhammaan